Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan ka hadlayaa ama halkan ka hadlayaa waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed. Dhammaan intii ummadda Soomaaliyeed garanaysa dhibaatada iyo dhibka walaalaheen Jabuuti haysta ama ka damqanaysa. Maanta inay ka hadashaa waa waajib. Ismaaciil Cumar Geelana kulley waxa weeyaan Jabuuti meel isagu leeyahay maaha, madaxweyne ku ahaa. Ama markaa dhammaan ummadda waxaan u sheegayaa kaligiital kasta ama hogaamiye kasta markuu waqtigu ka soo dhammaado waxaan micno lahayn ama aanay waxba ka soo baxayn faa'iido aanay ku jirin ama indhaha Soomaaliyeed. Horta kulley Jabuuti ku adkaado Jabuuti dadkeeda waxba iskagama tirinayo dadkii Soomaaliyeed kale ku kacay ee ka xumaaday wuxuu sameeyey Ismaaciil ayuu iska jeedinayaa. Meeshan shir daacada lama ama dad Soomaaliyeed la wada hadashiinaya ma jirto. Arrinkani waa si uu indhaha iskaga jeediyo. Kulley Jabuutiga iyo dad xero ugu xareysan buu arkay dadkii kale Soomaaliyeed ka damqaday ayuu iska jeedinayaa. Waa siyaasad aan dhaafisnin gurigiisa. Marka inkastoo marka waqtigu ka soo dhammaado waxay la noqoto caqliyan uu sameynaya balse Ismaaciil inay u suurto galayn meesha indhaha Soomaaliyeedna ka jeesanayn ayaan kuu sheegaynaa. dadka reer Jabuutina waxaan leeyahay waa reer Jabuutiyo ficilka idinka weeyaan ka hadalkayguna annaga weeyi. ficil sameeya. Ismaaciil meesha ku budaaraada waxa weeyaan haddii laakiin ku dhaqaaqi weydaan dadka Soomaaliyeedna waad moraal jabinaysaan. waxba meel laga hadlaa micno ma sameynayso. base waan taageersanay guryaha ka soo baxa. weliba dumarka reer Jabuutiga baa labada ficil ama raggii Jabuutiyaanka ahaa Ismaaciil baa xiniyo ka saaree. dumarow idinku dhammaantiin guriga ka soo baxa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.